قال الله تعالى إلهي باوحر وجاءوا وحي لي مادين على قميصه قميص كيو قشنا بدم كذب بدم ذي كذب ليك بينه أي كسو داديين قال مركا وحا يري يعقوب باوحر بل معن بهالكاشيكتين سولت لكم أنفسكم نفتي نوحا يدين قرحيسي أمرا أرن بيدين قرحيسي دل كيساه فصبر جميل فحالي أرن كي وحوي صبر جميل صبر ونعكس والله إلهينا المستعان كاللغا قرقار سدوي على ما تصفون وحا أشياء إيسان وجاءت سيارة وحا صور دعاوي بسفر فأرسلوا وحا الدرين واردهم كي أروري بيها وصور داميني فأدلى دلوة ودانتي سيبوا عيالك كردي قال مركا وحري يا بشراء بشاروي ماشا دواتنا كالي هذا غلام كنوابا إن اللي يرى وأسروه بضاعة ويقرص ذا قردي سفر كان نبي يوسف يقول ألابك دكتيل إيبيني والله عليم إلهينا وأوغيهي بما يعملون وحي سمين أيام وشروه النبي قال وحي كويب سدين بثمن بخس العقير دراهم شلمي كويب سدين معدودة ترسن وكانوا وحيها قال هذا سفر كي فيه إساقة من الزاهدين كوا إسكن عايو إن يسيها يستانان شعلين وقال وحوري الذي اشتراه كي إبسدي ومن مصر ناشا مصر قال هذا مصر لا إله كمده وحكوير لامرأتي حاس كيسي أكرمي مثواه ماشو دقيو هقاتيو ماموس عسى أن ينفعنا وحلقا يابين وحين قتره أو نتخذه ولدا أما المباء نكدغنه وعرورا نكدغنه وكذلك بولاي السدا سوكله سانود جنن النبي هلكا مكنا ليوسف في الارض نبي يوسف دلكي بانو دجنay lagala dagaalamay ولنعلمه يسانو برنا من تاويل الاحاديث منامك iyo wararka cabirkooda والله غالب على امر الهينا arrinkiisa mid hirgelinayo weey oo aanu hakanaynin ولكن اكثر الناس dadka sayntooda badani la yaclamuuna ma garanayaano waxay doonayaan bay doonayaan inay fuliyaan ولما بلغ مركي ونبي قاري أشده مذكر نمديس أو اسكت تنطي آتيناه حنسينا حكما حكمة وعلما يو علمي وكذلك السدا صوكله أيما نجزي ووالينا المحسنين سما فلياش أبو الهي سبحانه وتعالى الماء يعقوب سيأو قنعيان آبهود ويقول قنعيان إن كيسا يوسفان كحيني وحا عني بهال شارك قميصكي uu gashanaa bay ku soo daadiyeen dhiig baa dusha laga soo daadiyay marka waxay leeyahay waa kaasoo shaarkiisina wakaa ama qamiiskiisi qamiis waxa la yiraahdaa shaygan dusha laga gashado shaarko kalena uu noqon karaa kanaynu qamiiska u naqaanay ilaa xagga hoose joogana waa noqon karaa labadaba wata calaamadii bay dhahay calaamadaas uu leeyahay dhiigii waa adiga arkaya marka sidaas uu eegay wuxuu arkay waxaan sheegayaan inaan waxba ka jirin qamiiskanina qamiis bahal wax ku cunay inaanu ahayn jeexnayn waxba qabin marka macnihiisu waxa uu taagan yahay dulqaad badan bahalka inaan kaygiina cunay qamiiskiina waxba yeelin xaaladiisu saasay u taagan marka erayga bal wuxuu sheegayaa jawaab uu yahay wixii ay sheegeen ayuu burinayaa ma jiro waxa sheegtay bahalkaasi muu cunine naftiinni baa waxay idin qurxisay inankii dishaan amran taasi waxa weeye dilkii buu taagan yahay inankii dishaan ayaa naftiinnu ay idin qurxisay war kale ma jira de kol hadduu tegey waxaan sabrayaa sabir wanaagsan ilaahayna waxaan ka gargaarsanayaa oo aan kaalmo ka weydiisanayaa waxa sheegteen iyo inankaa la waayey inuu iga caawiyo iga saacido oo dajin uu siiyo halkaas ay ku kala dhamaadeene warkii baa ilaahay dib ugu noqday isagoo ceelkii ku jira ilaahay ciidan u diray nabi yuusuf ciidana ilaahay u diray waa qoladii safarka ahayd ninkii hadlay filayay ayaa soo dhacay oo way yimaadeen oo nin baa la ceelkay nooga soo dhaamay ceelkii buu tagay wadaantii buu ku riday waaba soo qabsaday inil darano halkan ku jiray
ayuu ahaayo wixii u horreeyey u yimina wadaantaasuu noqday bal ifka aad u baxdid buura wuu ku dhegay intuu ku jiray 3 cishay sheegaan laakiin dee daliilka kuma cadda 3 cishay iyo ka badan iyo ka yar inuu ku jiray nasku muu caddaynina inuu halkaa galay un baa cad markuu soo qabsadayna ninkii waa farxaya wuxuu ihi bushaaroy buuri bushaaroy haddaad meel u niman lahayd waatan waaba gulaamku waa ilmuhu marka uu yaryahay meelaha qaangaadhka ama uu soo qaangaadhayo oo kale muraahiqa la idhaahdo war kale ma hayaan iyaguna waa safaroo dad la wadwaday waxaa taaguma hayaan berigaana addoomaa jiray oo dee addoomuhu taariikhdooda way horreysay islaamka wakhtigan dambe nebi maxamed un kamay bilaabmin nebi ibraahim calayhi salaam xaaskiisii haajariba dee addoon bay ahayd la soo siiyey marka waxay ka dhigeen inay iibiyaan magaaladii masar bay tegeen ninkaa madaxda ah baa laga iibiyey sidii baa lagu wareejiyey gorgorta badan may sii geline xoogaa adduuna intii loo ogolaa ayay iska qaateen ilaahay uu ku sheegay daraahima washaraahu bithamanin baksin daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min azaahidiin wa iska may jeclayn inay sii haystaan ama iyagu ay addoonsadaan ama ay wadwataan may jeclayn ilaahay baa markaa doonay inuu dariiqo kale u furo iyo faraj sidii horeba aynu soo tilmaamayna wax kastood jeclaysataba waa laga yaabaa waxaad karahaystaa inuu ka dambeeyo waxaad karahaysanaysana waxaad jeclaystaa uu ka dambeeyo waxaad doonaysana wuxuu ilaahay doonayuunbaa ka miisaan badan oo iyaguba waxay doonayeen inay dilaan faaraaduu qatlahu faaxyaahu allah markaasuu ilaahay nooleeyey waxay dooneen in la waayo markaasaa la helay waxa la doonay in la addoonsado markaasaa ilaahay u xoreeyey waxa la doonay in la dulaysto markaasuu ilaahay ciseeyey waxa la doonay in la fadeexadeeyo markaasuu ilaahay beri yeelay subxaana wa tacaala marka intaasoo arrimoodba wuxuuna ku tilmaamayaa arrimuhu inay ilaahay ka go-aan subxaana wa tacaala ninkii iibsaday ee casiiz la odhan jiray imra'atulcasiiz baynu xagga dambe ku arki doonaa magaciisa casiiz baa la odhanayey reer masar buu ahaa xaaskii baa wuxuu ku yihi ilmahan ninkan meeshuu degayo hagaaji laba midun bay noqon doontaa waxna wuu inagu tari caruurna waynu ka dhigan marka waxa laga yaabaa bay leeyihin inaan dee caruuri jirin ila qaar hore hadday sii haystaan caruur baynu ka dhigan muu yidhaahdeen waa iska suuragal kuma sacadda caruur baynu ka dhigan ubu iyaduna tii baa aqbashay waa la dejiyey halkii tacliiq baa ilaahay u raaciyey warbixinoo anaa dejiyey baa ilaahay nebi yuusuf anaa dejiyey dejintii iyo waxaan isugu daray cilmigii oo labaduba derajo leh dalkana halkaasaan ka dejiyey aqoontaydiina waan siiyey manaamka cabirkiisii waa ta'wiil axaadiid ilaahayna arrimihiisa isaga haalib ku ahoo aan waxba ku adkaanayni wuxuu doona hirgeliya waa inagaa tafsiir ka bixinaynay mar walba wixii la doonay waxaan ahayn ayaa uu ilaahay hirgeliya dadka intooda badani ma garanayaan waxoodun bay ku dhaga adagii markii uu gaadhay inuu mudakaro ayaa ilaahay uu siiyey xigmaddii iyo cilmigii markaasaa laga dhigay rasuul ilaahayna cid kastoo muxsiniina sidaas u dooranaya oo markaa samafalayaalaho samafalka caan ku ah halkii haddii aynu ka sii wadanno fawaa'idkii waxyaabaha inoo muuqanaya waxaa ka mida qisada aynu ka arkayno alxusru amrun fitriy inuu qofku wixii musiibo ku dhaca ka murugoodo lagula yaabi maayo dadka wanaagsan iyo ambiyada oo nebigani dee waxa imurug gelinaya buu leeyahy oo murugo igu haya inaa inankan kaxaysaan innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah murugadayda allah nula cabanayaa buu leeyahy marka taa la odhan maayo mar hadduu ilaahay rumaysan yahoo dee ambiyadii ilaahayba uu ka mid yahay iimaankiisu qawi yahay maxay murugadani ugu imanaysa waa arrin qofka bani aadamka iskaga iman kartoo dee dabiiciya waxyaabaynu ka faaidaysanayna waxaa ka mid a laa yanbagii talqiinu lkhasmi xujatah ma haboono qofka ay ishaysaan inuu doodiisa wax kaa faa'iidaysto loo laqimo amaba qofka qaadiga ahiba dadka ishaya uu u afjaaqiyo uu yaro horkaco hadalladii ay odhan lahaayeen waayo nebigani wuxuu yihi waxaan ka baqayaa inuu bahalkaa yeyga la idhaahdaa cuno intii unbay soo waarideenoo la shir yimaadeen yeygii aad sheegtay unbaaba cunay bay dhahan naqshaday ka xadeen wixii ay hadhowto odhan lahaayeen unba isaga ka sii heleen markaa ha odhan ma taasaa dhacday oo markaa ma waxaasaa jiray oo markaa ma sidaasay noqotay intaasunbuu qofku qoranaya uu kaa daba odhanaya ha sidaasay ahayd sidaasay ahayd saasay ahayd adigaa xujadii u laqimaya
marka nidaam ahaan nidaamka dacwadda iyo dadka waraysigooda iyo wax sheegmadaba inay kaa xadaan maaha hadallada albalaa'u muwakalun binudqi had iyo jeer balaayadu waxaa loo wakiishaa un hadalka oo balow waa tii lagu hadla ama in badan hadalkay ka soo baxda ama qofkaba alla ka yeedhsiiyaa dee isagii baa laga sii yeedhsiiya waxaan ka baqayaa in bahal cuno iyaguna tiibaa markaa ay iyaga laftigooda waxay dhaha innaa idan la khaasiruun waxaanu ka baqaynaa inaanu khasaarno khasaara laftiisii bay ku dhaceen khasaare ay sii saadaaliyeen inay yidhahdeen waxaanu ka baqaynaa inaanu khasaarno kii un baaba alla u qaadayba lutfu llaahi liyuusuf calayhi salaam wa ikraamu ilaahay siduu ugu naxariisanayay nebi yuusuf ayaa uu aayadda ku caddeeyey mar walba waa loo waxyoonaya waxigaasina wuxuu sheegaya dejin ilaahay uu dejinaya subxaana wa tacaala nebiga waxaynu ka arkaynaa ambiyadu waxaa ilaahay ogeysiiye mooyaane dadka uurkoodana ma oga arrimaha maqanna ma oga laakiin wixii ilaahay ogaado iyo sida dee dadka ugu caqli badan weeye wixii ay saadaal ku helaan ayuunbay ogaan karaan saa daraaddeed daahirka iyo waxa muuqda ayuunbay xukumayaan oo ay raacayaan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo nebiyada ugu fadli badnaana wuxuu lahaa markii uu dadka la hadlayay isagoo taa ka qancinaya gudahooda iyo baatinkooda inaanu ogeyn inakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum alxana bixujati min bacd waxay ii imanaysaan idinkoo doodaya waxaana laga yaabaa inay kala aftahansan tihiin anigu markaa doodaa daahirkaa unbaan raacaya ee qofna qalbigiisa kuma jiro qofkaan u xukumo xaqaanu lahayn ama ha qaata ama ha iska daayo waa naarun baan u xukumay ha ogaado wey marka daahirkoodu nebigani raacay nebi yacquub inamadan iyaga ah marar badan saasay dee ku khiyaameeyeen waxaynu ka faa'idaysanaynaa rafcu darajaati alcibaad min manaafic albalaa ambiyada had iyo jeer ama addoommaha wanaagsanba sababaha ilaahay uu darajadooda kor ugu qaado waxaa ka mida balaayooyinka soo maraya ina cidama alajri maca cidami albalaa rasuulkeennu wuxuu ina leeyahy sala allahu calayhi wasalam abaalmarinta u weyn iyo ammaanta u weyn waxay ka timaadaa balaayada u weyn ambiyadaana ugu imtixaan badan alibtilaau bidaayatu atamakuni lilmu'min had iyo jeer marka qofka imtixaanku aada ugu badan yahayna waa marka darajooyin waa marka uu soo socdo guushu markay soo dhowaato fool baa ka horeysa soo maad arag marka la dhalayo walad lagu farxo fool adag baa ka horeysa marka haddaad aragto iyadoo ummadda ama shaksiga imtixaanku ku badan yahay faraju ku farxo oo degdega oo la yaabo badanoo wixii hore aada uga fog ayuunbaa la arki doonaa dee qisadu arrimaha isku xigxigsinayso waa innaga arkayna xikmad carbeed baa waxay tidhaahdaa alcaynu tastaxyi min alcayn ishu ishay ka xishootaa nimankan ictidaarkoodii waxay u doorteen iyo inay odayga u marmarsiyahan ula yimaadaan habeennimo u doorteen habeennimo maalin may dooranin waayo waxay arkayaan dee ishooda in laga garanayo maalintii inay siyelyeelayaan inay ka run tahay oohintan inay ka run tahay iyo inay ka been tahay haddii maalin ay tahay waxaa la arkaya indhahoodaa laga arkaya waxa uu lahaa axadu aclaami salaf mar la waaniye oo la yidhi mar inankiisa la hadlo wuxuu ihi aabba markaad adigu dadka wacdido dadku way wada ilmeeyaan ama way ooyaanoo qiiru ku abuuraa wacdigaaga dadka kalena wacdigoodu marka ay wax wacdiyaan waa iska caadi markaa wuxuu ihi laysat annaaixatu thukla ka naaixati lmustaajira xikmadda ama mahmaadaasu soo qaata labada dumaree midna lasoo kiraystay midna goblantay isku oohin maabu marka had iyo jeer qofka goblantay dee oohinteedu waa dhab buu leeyahy tan kalena dee inta la eegayaabay iska oohinaysa marka iyagu inay iska oohinayaan maalintii way muuqanaysa marka saasaa loo yidhi alcaynu tastaxyi min alcayn ishan ilmaynaysaa waxay ka xishootay isha eegeysa maalinkii saa daraaddeedaba habeenkii ayay u doorteen inay aabbahood u yimaadaan ay u cudur daartaan waxyaabaa aynu ka faa'iidayna waxaa ka mid ah albukaau laysa daliilan cala sidqi axyaana oo intuu qofku ooyaa ka turjumi mayso marar badan inuu run sheegayo waa laga yaabaa inay u badan tahay qofku marka uu run sheegayo ee uu ooyo muraara dilaaco uu qaadan waagaasi inuu sheegayo inuu run sheegayo laakiin marar badan baa oohintu ay
qof been sheegaya ooyi karaa sidan aynu qisadanba ku arkayno imaamkii ama qaadiga aan idhaahna ee cadaaladda badnaa garyaqaankii weynaa shurayx la odhan jiray shurayx alqaadi ayaa gabadh buu go-aan ku riday dacwoonaysay markaasi oohin ka sii daysay imaamu shacbi oo ag joogay baa wuxuu ihi warde waa tan barooratay armay run sheegaysa isaguna uu jawaabo wuxuu ihi ilmo yacquubba waa kuwii ooyey maxaad islaantan ooyday ula yaabaysaa buu ihi ilmo yacquub waynu garanayno suuratu yuusuf waxa ilaahay uu ku sheegay inay ooyeen aabbahoodu yimaadeen iyagoo ooyaya marka inagu oohin waxba ku xukumi mayna sharcigun baynu raacaynaa iyo cadaaladda waana runtii dee waxaa jirta halgeena cunto cabaada hal walba way qaniinaysaa iyadaana ugu qaylo badanba marka qof dadka oo dhan wareeriyo mid walba gujinaya ayaa badanoo haddana isagu ah dembiilahaba marka daraasad bay u baahan tahay yaa qaldan in la eego mar walba waxaynu ka faa'idaysanaynaa ana alkadiba laa yakhluu min daliili calaa buطlaani waxaan la yidhaahdo beentu had iyo jeer lagama waayo wax buriya de adigan arkayo fashilaadii horeysayba qamiiskii ka bilaabantay qamiiskii ayay ka bilaabanto sidaad u eegay wuxuu arkay meeshan calaamadii beentu inay jirto waa kuwa Soomaalidu luquray maxay yiraahdaan luquray leedahay taas uma la baroojiyaa beentu waad soo qaybaysaa casharkeeda aad baad u qaybaysaa aad bay u qaybaysaa laba su'aalood la weydiiyo ayuunbay ku kala kacaysa waxaynu ka faa'iideysanaynaa sixatul firaasati wa tawassum linuur alqalb qofka muuminka ah iimaankiisu weyn yahay wuxuu leeyahay wax firaasa la yiraahdo firaasa waa faham iyo dhug dheer oo qofka meel dheer wax ka arki karo wanata ilaahay uu ku garansiiyay nabigan isaga ah inay been sheegayaan ee uu markuu u jawaabayay ku yiri bal sawalat lakum anfusukum amran bal ma jira buu go'aan buu u dhiibayba firaasu leeyahay qofka muuminka ah faham dheer waxaynu ka faa'iideysanaynaa man istacjala shay'an qabla awaanihi cuuqiba bixrimaani qofku hadduu shay ku degdegay intaan waqtigiisa la gaadhin waxa lagu cuqubeeyaa inuu waayaba waxay doonayeen jacaylka aabbahood horey u soo fadhiisteenoo way qadimeen mabay sugin waqtigeedii iyo siday uga midho dhalin lahaayeen jacaylkiiba markaa cadha iyo karaahi isu abuur ayuu isu rogay marka shay waliba wuxuu u baahan yahay waqtigiisa midhuhuba waqti bay leeyihin lagu goosto waxaynu qisada ka faa'iideysanaynaa yajib icmaal alamaaraat fi masaa'il min alfiqh calaamooyinka waa lagu xisaabtamaa marar badan fiqiga baabka fiqiga la yidhaha sida baabul qasaama oo kale marka calaamooyinka qisadan in la raacayo meelo badan ayaynu arkaynaa halkan iyo qamiiska xagga dambe dilaacsan iyo marka amaaraadku iyo calaamooyinka fiqigeena waxyaabo lagu xisaabtamo way haddii imikaba qof meel lagu dilo oo dadka uu ku dhex dhintayna ay dad cadow u yihiin waa calaamad sheegaysa inay iyagu dileen marka halkii iyaga laga dhaarin lahaa waxaa la dhaarinayaa dadkii ay isxigeen ka dhintay ayaa dhaartii lagu horreysiinaya nidaamkii caadiga ahayd iska qallidaya waa kiis boolis waxaana yidhaahdaan calaamaadku wax ku xisaabtan bay leeyihin sida meelahan aynu arkayna qisada dhexdeeda loogu xisaabtamay waxaynu ka faa'iideysanaynaa man wusida ilayhi amru yanbaqii an yakuuna ahlan lahu qof haddii wax lagu aamino inuu ahal u noqdo khiyaamadan ka ilaaliyo iyo xulgudasho la'aanta iyo dayacaadda dal iyo dad iyo duunyaba marka fashilaadda halka nimankan ka soo gaadhay inay waalidkii ka qaadeen inankiisii kadibna ay dayaceen waxyaabaha qisada ku ceebaysay bay ka mid tahay nimankaa iyaga ah waxaynu ka faa'iideysanaynaa sabirka wanaagsani inuu yahay alladii laa shakwa fiihi ilaa ila allah sabirkaa wanaagsan uu sabraya waa ka aan cabashada ahayn axadu aclaami salaf baa wuxuu lahaa cudurkaaga iyo caydhaada iyo cabashadaada cid aan ilaahay ahayn ha u sheegin marka isaguba sabir wanaagsan baan sabri buu kaasina waa ka ilaahay ula cawdo wuxuu yidhi inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah murugadayda iyo mushkiladayda waxaan ula cabanayaa ilaahay idinka idiin sheegan maayo sabirka wanaagsani waxa weeye asabru cinda sadmati luula siduu nebi maxamed xadiidkii saxiixa ku sheegay sala allahu calayhi wasalam jugta u horeysaa markay musiibada kugu dhacdo waa markaad tidhahda ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhad walahu maa acطa wa kullu shayin cindahu biajalin musaman intoo dikrigaa iyo ducada akhrido
ayaad halkaa ku joojinaysaa nafta qaylo iyo baroor iyo calaan cali iyo cataab iyo uqaadan waa iyo waxaasaad iska daynaysa markaa sifooyinka iyo tilmaamaha sabirka xambaarsani waa sabirka jamiilka ah ee qiimaha badan waa aayaddii ay soo dariishatay caaisha allah ka raali noqdo markii la yidhi way sinaysatay ay nebi maxamed la hadlaysay garnaqsanaysay waxay tihi iyadoo aabbaheed iyo hooyadeed rasuulka hor fadhida ayay tihi waxaa intay iska beri yeeshay hadashay ayaa waxay ku soo gebagabaysay wax kale ma garanayo ee wuxuunan leeyahay fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waxaan odhanayaabay tihi wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun intaasumaan leeyahay wax kaloon idhahdaa ma jire dad badan baan iba rubaysanaynin wallahu subxaana wa tacala aclam